shirkadda Orange Worldwide oo ka shaqeysa deeqaha waxbarashada raadintooda iyo iibinta guryaha Turkiga ku yaala ayaa markii u horeysay xafiis ka furatay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle. shirkadda Orange Worldwide xafiiska ay Jowhar ka furatay waxaa maanta ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku nool magaalada Jowhar iyo wasiirro ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabelle. waxaana halkaasi bogaadin loogu jeeday shirkadda Orange Worldwide iyadoo shirkadda madax ka tirsan ay sheegeen in xafiiskan Jowhar ay ka furayaan ay wax badan ugu qaban doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Jowhar. goobta waxaa ka hadlay ugu horeyn madaxda ka tirsan shirkadda Orange Worldwide, madaxa gobolka Shabeellada Dhexe iyo madaxa Afrika ee shirkadda. horto su'aalaha hadda la weydiiyay priority markii la dhaho in aan ka jawaabo waxaa ka muhiimsan gudoomiyaha company-ga Orange Worldwide company meesha fadhiyo inaan ku ixtiraamo aanan ka hor hadlin. laakiin muhiimadda codka la siiyay ayaa waxay tahay inaan ka hadlo labo program oo Orange Worldwide company quseeyo oo ah programkan Hirshabelle ee Jowhar sababta lagu dhalisay inaan keenno iyo faa'iidada ugu jirto iyo waxyaabaha uu qabanayo si detail ah qofka inuu ka faa'iideysto rabo sida ugu faa'iideysan lahaa. marka ugu horeyso waxaan ka bilaabaynaa horto wax walba waxa waaye qadar waaye oo xilliga aad qabanaysid way qoran tahay. maadaama aniga aan ahay dhalinyaradii reer Jowhar oo iskoolaadii Jowhar wax ka bartay oo jaamacadihii Muqdisho u aaday, waxa marka ardayga oo horto gobol ka baxo oo wax soo barto waxa muhiim ah inuu gobolkiisa ku soo laabto isagoo wax faa'iido u wado ama kala hataa gacantiisa wuxuu ku yaqaan ugu faa'iideynayo. horta inaad barato shaygan wax uu yahay Orange maxay qabataa dad badan laga yaabo aqligooda inuu ku soo dhaco Orange cabitaan ma qaybin doonta ama cabitaan ma iibisaa, laakiin Orange waxyaalaha ay qaban doonto waa barnaamij oo service ama adeeg. barnaamijyadaas oo baahidooda ee ka jirta maanta wadankeena Soomaaliya gaar ahaan gobolada Soomaaliya ay ka mid tahay magaaladani Jowhar. shirkadda Orange ayadoo ka jawaabayso baahida deegaanka iyo dhalinyarada ku nool deegaanka iyo waalidiinta intaba waxaan jeclaysanay xafiiska shirkadda inaan keeno magaaladani. Orange shaqooyinka ay qabato waxaa ka mid ah qaybta education service-ka oo waxbarashada ayaan ka shaqeynaa. ardada ayaan waxaan u keenaa fursado waxbarasho oo dalka dibadiisa gaar ahaan jaamacadaha ku yaala dalalkaasi Yurub. isduwaha tuwaha dowlad goboleedka Hirshabelle iyo waliba wasiir dowlayaal ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay goobtaasi. waxaan ku darayaa aniga oo kaliya inay muhiim tahay jaaniska maanta ay noo keentay shirkadda Orange, waliba inay nagala soo daaheen oo aan u baahneen annaga laftirkeena waqtigii aan ardaga ahayn inaan ka faa'iideysano fursaddan oo kale haddaynu soo marinahay. doodaas waxaan saar lahay tiimka u qaabilsan Jowhar shirkadda ka gaabiyeen in maxaa la yiraahdaa Jowhar laga daafuro markii hore second u noqoto. waxaa leeyahay doctorka Sikriya aniga eedda saara sababtoo ah asaga meesha noo joogo. ma rabo inaan hadalka ku dheeraado, waxaan hadalkii ku soo koobaa waxaan in aan ku qanacsanahay aad u soo dhaweynayno shirkaddan World Company. ما شاء الله. لكن Orange wax ka qiimo badan inay wadaan meeshan ka muuqato waana soo dhaweynayna company aad u qiimo badan waaye. waa markii u horeysay xafiis caynkan oo kale laga furo magaalada Jowhar caasimadda Hirshabelle isla markaana ka shaqeynaya raadinta deeqaha waxbarasho ee Turkiga iyadoona sidoo kale shirkadda ay qabanayso sida ay sheegeen iibinta guryaha Turkiga ku yaala.